Assalaamu calaykum saaxiibada ku xiran saasuuban kusoo dhawaada muuqaalkeeni maanta waxaan kaga hadli doonaa 10 waxyaabood oo kobciya iimaanka ama kordhiya sida uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay iimaanka qofka mu'minka ah marna waa u ziyaadaa marna waa u nusqaamaa haddaba maanta waxaan halkan ku sheegaynaa 10 waxyaabood oo iimaanka kobciya midda koowaad waa towbada dhammaan bani aadamka waxaa ka dhaca dembiyo iyo gafaf aad u badan haddaba waa in aan mar walba alla weydiinaa dembi dhaaf una toobadkeen dhab ah kana fogaanaa in aan samayno dembiyo kale waa salaada in la ilaaliyo salaada laguna dugto waqtigeedii qofkii taa laga hela waxaa kordhaya iimaankiisa midda saddexaad akhrinta qur'aanka kariimka ah aqri qur'aanka oo hel ka dhigo oo waxaa kordhaya iimaankaagii midda afraad xuska alle bar carabkaaga xuska alle kuna celceli mar walba kelmadaha khayrka badan oo ku soo arooray axaadiista midda shanaad in aan alle tala saarano eebbe waa naxariis badane sidaa darteed waa in aan talo saaranaa mar walba naxariistiisana aanan ka quusan marnaba midda lixaad ducada in aan alle mar walba u sheegano danaheeni kana barino wax walba oo khayr ah kana magangalno wixii shar ah midda toddobaad haddii aad badisid barashada cilmiga waxaa kordhaya iimaankaagii midda sideedaad soonka waajibka ah iyo midka sunnada ah waxaa laga helaa ajar aad u weyn oo qadarkiisa garanaya alle oo keliya waxaana laga helaa inuu iimaanka u kordho qofka midda sagaalaad xusuusta geerida iyo maalinka qiyaamo waxaana sugaya geeri iyo maalin aad u weyn oo la xisaabin doono haddii uu addoonka mar walba uu xasuusto intaa waxaa kordhaya iimaankiisa midda ugu dambaysa ee 10aad ku dadaal in aad joogtayso camlada wanaagsan ilaa ay ka mid noqdaan dabeecadahaagii waayo wanaaggu wuxuu kuu jiidayaa wanaag kale intaa aad soo sheegnay haddii aad samaysid hubaal waxaad helaysaa iimaan koror intaa ayaa ku soo gabagabaynaynaa waa inoo muuqaal kale saaxiibayaal muuqaalka laakiin saarsiina sheergaray kuna soo bir channelkeena saasuuban subscribe inoo dhammaadsanid